kumanaan iyo kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa isugu soo baxay isla markaasina taageeradooda ku muujiyay fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa. taageerayaashan oo baaxadoodu aad u fara badnaa isla markaasina ka kala yimi xaafadaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa isugu soo biyashubtay xarunta weyn ee beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa, waxaana taageerayaashaasi kala qayb galay isla markaasina halkaasi khudbada uga jeediyay ay ku dhiirigelinayaan isla markaasina ay ugu sheegayaan inay xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiye oo codkooda siiyaan isla markaasina ay u codeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xisbigaba. mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xisbiga kulmiye waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida ololaha kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Murudijeex iyo xubno ka mid ah gudidaasi aynu isu diyaarinayno inaynu talada dalkeena qabanno. Soomaaliland guul sooma dooranno madaxweyne Muuse Biixi 5 sano kale maxaynu leenahay 5 kale haynoo haye hoggaanka halyeyga talada fiican haynoo haye hoggaanka halyeyga talada fiican. xisbiga kulmiye ha guulaysto, madaxweyne Muuse Biixi ha guulaysto, saajid ha guulaysto, cabdillaahi dirawar ha guulaysto, axmed ismaaciil sabata ha guulaysto. xisbiga kulmiye wuxuu wadaag leeyahay horseed iyo ilaac dhammaantoodba saddexdaas waa isku sirtan yihiin. garab istaagga qarankiinna waxaa lidinka doonayaa codkiinna inaad ugu hidhisaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland. sow diyaar ma tiidin codkiinnaasaa hiil qaranka oo ah. waxaan doonaynaa 13 Noofembar inaydu sanduuqa gacanta gaadhsiisaan idinkoo u hiilanaya madaxweynihiinna qaranka, idinkoo qarannimadiinna difaacaya. sow diyaar ma aha. guul baanu rajaynayaa kulmiye madaxweynaha qarankaba, guul baanu rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. cabdi Hargeysa laga doonayaa majoritiga hadday Hargeysa heshay madaxweynaha helayna soo maaha. reer Hargeysa dhiigu biyo maaha, reer Hargeysa baaqneer baan idinku leeyahay dhiigu biyo maaha. codka waa inaad ku garaacdaan xusbiyada mucaaridka, waddani waa inaad la degtaan, waa inaad 13 guusha soo haysaan. aad baan idiin salaamay reer Hargeysa, Soomaaliland oo dhan waa salaamay. anigu waxaan ahay reer Hargeysa, guusha Hargeysa idinka doonaya, guusha Hargeysa waxaan doonayaa inaad kulmiye u codaysaan, codka koowaad madaxweynaha inaad siisaan. ururka horseed mujaahidka cabdillaahi dirawar soo saara. maanta noo farxada haddaanu nahay guddiga kaambeynka gobolka Murudijeex gaar ahaan degmada Hargeysa inaanu maanta mididii ugu ballaawnay ee taageeradii xisbigii kulmiye ay halkan ku cibaadaysteen. sidoo kale anigoo oo ka socdo oo matalaya bulshadaydii xaafadda daami xalay afkayagii bay kula hadasho olo waxay ku tiri biiqatalow naga shan annagu kuusha mid mayna naga shan baarmakayagii xalay xaggaasii ku gabagabaaha. maalin walba sidaan u soo buuxinaya fagaaraha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. xusbigii waddani waynu kala tagnay sow maaha. istoobadeennu baa u sii muuqda sow maaha. waxa weeyaan nin weyn baa intuu halkan isa soo taagay wuxuu yidhi waxaannu ku dooranaynaa cirro. waxa weeyaan wax baynu la cunaynaa. ma in hantida qaranka lala cunaabaa. madaxweynaheennu wuu xafiday hantidii qaranka, wuu ilaaliyey. waxaynu leenahay shan dambe. yaa garanaya aabbaha qabyaaladda ee Hargeysa ku dhex nool waa kuma? aabbaha qabyaaladdu waa kuma? aabbaha qabyaaladdu waa kuma? aabbaha qabyaaladdu waa kuma? waxaynu leenahay hadhaco. waxa weeye shacabkani waa shacab. waxa weeye Soomaaliland 34 sannadood ayay u halgamayeen in ay madax bannaanidooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda la soo noqdaan. waxa maanta inoo dhow innagu cid aynu isbeddelaynaa ma jirto. isbeddel doon ma nihin oo horumar doon baynu nahay soo maaha. xusbigeennu
aad baan runtii u mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin aad baan idinka mahadnaqaynaa sida muuga leh ee miisaanka leh ee quruxda leh ee qiimaha leh ee aad beertii xorriyadda u soo camirteen aad baad u mahadsantihiin ballanteenu waa 13 Noofambar aynu joognaa meel iskoyskaasi dhinacna waxa weeye Soomaaliland ictiraafkeedii dhinacna waa dib u noqosho inagu waxaynu nahay dhinaca ictiraafka Soomaaliland ha noolaato dhalinyarada Soomaaliland ha noolaadaan haweenku ha noolaadaan odayadu ha noolaadaan guulaysta codkiina ha khasaarinina maanta aad u mahadsantihiin dadka halkaa taagan maanta cadeeda u taagan aad baan idinku mahadnaqayaa waad soo dhawaynaysaan madaxweynihii Muuse Biixi Cabdi marsi labaad ayaad ku soo dhawaynaysaan way muuqatay oo aan arkay inaad soo banbaxdeen codkuna waa halkaa qarankan looma ogola mana doonayno Soomaaliland ha noolaato waxaad doonaysaan codka haddaydaan ilaalin haddii aydan codkiinna ilaashan oo aydan mujaahidka siinin 30 sano ka bacdi baa ku noqonaysaan waxaan idin leeyahay codkiinna ilaaliya waxaan idin leeyahay sidaa ku socda sidoo kale intay socotay madashani waxa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo xildhibaan Siciid Jaamac madaxweyne Muuse Biixi kaasoo ugu adeegay hufnaan daacadnimo iyo cadaalad maanta waxaynu joogtaan wakhtigii aad go'aamin lahaydeen hoggaanka aad rabtaan inuu idiin adeego maanta waxaad joogtaan fursaddii aynu 5 sanno mar kale aynu dooran lahay Muuse Biixi Cabdi maalinta 13 Noofambar madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye walaalayaal waxaad ogtihiin xisbiga kulmiye inuu xulafaysiga leeyahay ururka horseed haddaanu nahay reer Hargeysa anigoo ku hadlaya afkii Hargeysa ururka horseed codkeena waynu siinaynaa yar iyo gardarraba waynu ku siinaynaa ururka horseed iyo inagu isku mid baynu nahay reer Hargeysaynu nahay isku astaan baynu nahay madaxweyne Muuse iyo Cabdilaahi Darawal waa laba mujaahid oo dalkan u soo wada halgamay sidaa daraaddeed si waadixa codka waynu siinaynaa insha Allah idinki wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Ali Mareexan iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Torno ayaa iyaguna halkaasi ka sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ugu doorto waxqabadka iyo raadinta ictiraafka Somaliland waligeed Hargeysa xisbiga kulmiye ayaa hogaamin jiray gobolka Hargeysa doorashadii u dambeysay reer Hargeysa 67 kun baa ku hogaaminayseen oo dheeraydan xisbiga idila tartamayay ee wadani maanta waxaa loo baahan yahay 150 kun inaad ku hogaamisaan hadda ma ismaqlaynaa hadalkuba gam buu markaa noqonaya warkuba waa soo xidhmaya codkiina waa yaallaa 500 kun oo cod baa Hargeysa yaalla hadda eegta 500 kun baa yaalla marka 150 kun lama laabtaankii hore hadal ma hadhin guusha halkaasay taalla codkaa yaalla yaanu baaqanin waa la og xisbiga kulmiye codka Hargeysa u badan yahay weligiina u badnaa laakiin inta ugu badani waa inay codaysaa qof qura oo codkaaga yaanu habsaanin waxaynu siinaynaa waynu u hiilinaynaa madaxweynaha saamaynta ku leh ee hoggaaminta togan ku leh horumarka Somaliland ee saamaynta ku leh Afrika ee saamaynta ku leh adduunyada Soomaha yaynu xogeynaa intay madashaasi socotay waxaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyey xogayaha guud ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye iyagoo taageerayaashii aadka u faraha badnaa ee halkaasi isugu soo baxay islamarkaasina taageeraya xisbiga kulmiye u sheegay inay hiil iyo hooba la garab istaagaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo mar labaad
u sharaxan jagada madaxtinimada somalilan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxay tahay mahadnaq weeye dhammaanba taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ruuxiga ah ee buuxdhaafiyey fagaarayaasha 6 gobol iyo degmooyinka ee uu ka mid yahay fagaarahan weyne taariikhiga ee beerta xorriyadda waxaan uga mahadnaqayaa sida ballaaran ee baaxadda leh ee ay u soo baxeen ee ay shucuurtooda iyo dareenkooda u muujiyeen walaalayaal waxaad iyo jab ku riteen dad fara badan oo aaminsana inuu xisbiga kulmiye yahay xisbi aan shaqaysanin xisbiga kulmiye waa xisbi seeskiisu adag yahay waa xisbigii dhalay dimuqraadiyadda somalilan ee ay ka farcameen ururada maanta tartamaya ee ay ka farcameen dhammaanba axsaabta maanta jirta walaalayaal codkana siiyeen ilaahna soo maaha waxaynu leenahay bulshadeenna reer somalilan waxaynu leenahay codkiinna koobaad waxa leh madaxweyne muuse biixi cabdi soomaa soo madaxweyne muuse biixi cabdi kuubsanayna madaba dalka waayahay codkeenna labaad ayaa leh codkeenna labaad waxa leh xisbigeenna kulmiye soomaa xisbigeenna kulmiye ayaa codkeenna labaad xisbiga kulmiye la soomaa xisbiga kulmiye ayaa cadowgeenna dibadda ee diidan somalilan aqoonsigeeda maxaynu kaga adkaanaynaa codkaynu kaga adkaanaynaa soo maaha inaynu madaxweyne muuse codka siina soo maaha iyo xisbigeenna kulmiye soo maaha